kuna wacan daawada waxaad ku soo dhawaataa janaal kale waayo filmis oo hadaan oo kale aad ka barneed inaad idin soo gudbin warbixinada ugu dambeeya ee la xiriira arrimaha Bollywoodka. haddaba maqaalkan maanta waxaan ku soo qaadanaynaa xidigta dhawaan ku soo biirta film jilista sidoo kalena isha lagu wada hayo maadaama ay hooyadeed saameyn weyn ku dhexleeyd filmada Hindiya iyo koonfurtaba. xidigta mustaqbal ku leh Bollywoodka ayaa ah Janvi Kapoor, waxaana iska dhaleen halyeeyada geeriyoote ee Shira Devi iyo film sameeyaha weyn Bonnie Kapoor. waxaana film jilista ay ku soo biirtay sanada 2018 waxaana ku soo caanbaxday filmka jaceylka ee qisada xambaarsan ee Dhadak, waana mid guuleysto oo tirshadan amaan ayay ku heshay. Janvi Kapoor ayaa sheegtay inay ku dhaxnooshahay riyadeeda, arrintan ayay ka sheegtay waraysi ay bixisay. wax saameyn weyn ah kuguma yeelanayso kaliya inay tahay shaqo uun, maxaa yeelay waa nooc xirfad dareen leh, ma ahan shaqo 9 saacadood oo 5 maalin la qabto, mana ka tagi kartid, waad ku dhaxnooshahay. aad baan nasiib ugu yeeshay inaan sameeyo, mana jirin wax kale oo aan sameeyo. waxaan joogay goob aan mudnaa inaan fursadani igu soo baxdo, si fududna ma ahayn, waa wax labaad ee waxaan hubay ayay ahayd. xidigtan ayaa la weydiiyay inay dadka soo dhaweyn ka heshay ayna isku fiican yihiin maadaama waalidiinteeda la wada yaqaan. xidigtan ayaa ku jawaabtay, waxaan u maleynayaa in dadka qaar ay ii wanaagsan yihiin waalidiinteeda awgeed, qaar kalena aan ii wanaagsaneyn. waxaana jira qayli ku karinaysa ama ku saabsan filimkii koowaad, labaad iyo kan saddexaad. waxaa jira hidde isku mid ah, laakiin aniga waan ka duwanahay hooyada iyo aabahay. waxaan haystaa waxaan dhaho, taas oo ah qofnimadeeda iyo waxaan ahay. xidigtan ayaa la weydiiyey inay ka taxadirayso hadallada ay sheegayso ama marka ay waraysi bixinayso oo ay ka hadlayso qoyskeeda ama filmadeeda. waxayna tiri, sida ogtahay waxaa jira bar oo aan dareemi jiray inaan u baahanahay aqoolid iyo qaar fikrad ah oo ay dadka iga aaminsan yihiin, laakiin daacadnimo waa maskax ah uma hayo oo aan isku dayayo inaan noqdo wax kale. xidigtan ayaa ugu dambeyn la weydiiyey inay qaadayso wadada hooyadeed iyo inay dhammaystirayso ujeedooyinka hooyadeed Shira Devi. waxayna ku jawaabtay, waxaan dareemayaa mas-uuliyad dadka ku aadan iyo midda ku aadan shaqada ay qabatay, xitaa marka laga soo tago shaqada inay nolosheeda wax fiican u samaysatay oo sharaf iyo bilic ah. Janvi Kapoor ayaa ku guuleystay Zee Awards for Best Female Debut oo ah abaalmarinta atirshada filmada ku cusub la guddoonsiiyo. waxayna muuqaal marti ah ku lahayd filimka Angrezi Medium, waxaana sidoo kale u diyaarsan filimka Dostana 2 oo sanadkan la daawan doono. waad ku mahadsantahay warbixintan daawashadeeda. haddii aad ka heshana la wadaag asxaabtaada.